inkastoo aysan VOA-du xaqiijin karin haddana waxay ila ka tirsan hay-adaha amniga inoo sheegeen in ikraam ay u gacan gashay al-shabaab ayna la aadeen dhinaca Doobley ee Kismaayo xigta. waxaa kale oo ilo wareedyo arrintan looga warbixiyay VOA-da u sheegeen inaysan xaqiijin karin nolosheeda ayna u badan tahay in ay dileen al-shabaab ikraam. ila ku dhow hay-adaha cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa VOA-da sidoo kale u sheegay in NISA oo ka jawaabaysa dalabkii maxkamadda ay ahayd in ay kasoo warbixiso halka ay ku sugan tahay ikraam in hay-addu ay ku wargelisay in warbixin dhammaystiran oo ku aadan sida loo waday iyo sida ay al-shabaab ugu gacan gashay ay u soo gudbin doonaan maalmaha soo socda. si aynu u xaqiijino sugnaanshaha xogta aynu ka helnay hay-adaha amniga iyo cadaaladda waxaanu weydiinay Qaali Maxamuud oo ah hooyada ikraam haddii ay jirto xog ku aadan gabadheeda in al-shabaab ay u gacan gashay in ay la wadaagtay hay-adda NISA. maya wax ii imaada mala bikaas waxay noo sheegeen in ay kaala hadleen oo ay warbixin kaa siiyeen xaaladda gabadhaada. oy dhaheen wixii beenta maxaa beenahay kuu sheegeen? aniga wiila ii yimiday wuxuu ii dhahay hooyo gabadhii dhinaca shabaab ay jirtaa meel dhayto baa kala dhahayaa lagu sheegay marka maxaan ku dhahayay meeshaasaa gabadhii joogtaa ama way dilayaan ama kolley inay dilayaan ay u badan tahay wax uun aqliga gelayni. aniga waxaan weydiiyey dadaan dad u diray dad meelihii shabaabku yaqaano wiilal oo maxaan ku dhahay dad qaraabe ah ee kuwada ah waxay dhaheen afkaas xarar dheere ilaa afka Doobley inta u dhaxayso hal meel oo gabadhaas joogto mala website-yadooda iyo raadiyoyaal ay qabaan oo yar aynu ku soo sheegeen ay dhaheen gabadhaas ma noola keeni karo mana maxaan ku iraadaayay mana hayna annaga ma arkin waa beentood dada Soomaali waa isla dhalatay muqsantahay. marka ma ku sharxeen sida ay shabaabka ku aadacday ma ku sharxeen? maya aniga waxay gabartayda meeshan intay dabayl soo qaaday shabaab intuu ugu yimiday galayr amal ama dafada la dhigi jir markaan yareen hilibka dafi jirtay ma u dafinaan dhahay meel oo u imaan karana maaha hadduu meeshan ka qaadaan dhahay ignaa idinkoo dildili lahay mar hore ee waxaasaa iila imaanina shibow dhahay hoos u jees marka wax aqli galay maahan wax aqli galay iila imaabaan dhahay shabaab anaka wiilalaa noo jiraan dhahay Soomaali waa istaqaanaan dhahay meesha ku dijeen oo ku qariseen ka soo bixiyaan dhahay waa duugana ama meesha ku haysin oo ku afduuban tahay iyaga soo bixi gaala idin maraacanay dambina idin qabee isoo bixi la cunugtaydi isoo baxsha war ma qarsoomayaan dhahay markii la qaaday darwal ma wadino aan dhahay gaariga staff ma joogo wax meelsha la geeyay dad ma joogo wax dhan waa ognaayaan dhahay laakiin maalinteeda laga hadli doonaa dhahay. inkastoo sida ay sheegtay Qaali oo ah ikraam hooyadeed lagu wargeliyay in gabadheeda ay al-shabaab u gacan gashay haddana ma ahan mid ay ku qanacsan tahay jiritaankeeda waxayna ku tilmaantay mid been ah. hay-adda nabad sugidda oo uu hogaamiyay agaasime Fahad Yaasiin oo ay dad badan u arkaan nin awood iyo galaan galba ku leh madaxda dowladda ayaa u muuqda in uu hay-adda ku keenay tuhun kumilanka siyaasadeed iyo sidoo kalena weeraro uga yimaada siyaasiyiinta mucaaradka waana sababta maqnaanshiyaha ikraan tahliil ay u tahay mid miisaan iyo hadal hayn ballaaran ku dhaxleh bulshada siyaasadda iyo warbaahintaba. sidoo kalena waxay madax xanuun ku noqotay mas'uuliyiinta hay-adda ugu sareysa oo ikraan ay soo wada shaqeeyeen aadna isugu dhawaayeen sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin dhinaca amniga ah oo ku tilmaamay ikraam gabar da'yar oo firfircoon shaqadeedana ku wanaagsanayd hay-addana ixtiraam looga hayay dhexdeeda. haddii sida ay sheegayaan xogaha sirdoon ee VOA-du ay heshay ee ah in ikraam ay al-shabaab u gacan gashay qaab sidee ah ayay taasi ku dhici kartaa? waxa aan weydiiyey bal in uu qiyaas ka bixiyo Korneyl Cabdullaahi Cali Macow oo muddo la soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka qaranka. waxa waaye qof ay ku kalsoon tahay oo maaragtay marnaba aysan ka filaynin inuu dhibaateynayo ayaa maaragtay arrinkaas oo kale falkaas oo kale u geysan karo qofka maaragtay gabadha u geystay. habeenkii gabadha la waayana waxa waaye waxyaabo badan oo information oo aan ka helay dad aad iyo aad xogogaal u ah oo communicationkeeda ku sameeyay muxuu ahay surveillance ku sameeyay ama tracking ku sameeyay dabagal ku sameeyay waxa ay sheegeen in habeenka gabadha muxuu ahay laga soo qaaday gurigeeda oo in maaragtay signalki oo sheegay telefoonkeeda in maaragtay saddex anteeno in iskaga gudubtay anteenada ku taala muxuu ahay boon dheer kabar garayso kadibna muxuu ahay waa bari kadibna waxa waaye Cabdulcasiis
ugu dambeyntiina gabadha meesha laga qaado oo kilomitr 0 ah hotelka Doorbin hortiisa ayaa kilomitr 0 ah fiyaad meesha ahayd halka ayaa telefoonka lagu damiyay marka waxa waaye suurtagal ma ahan gabadha in maaragtay ay qofkii ka kaxeeyay gurigeeda ay raacday sida ay u aamintay meesha ugu dhow oo gabadhaasi maaragtay cadow ugu dhiibi kara ama dambiilayaal abaabulan oo kaleeto oo maaragtay u gacan gelin kara ama shabaab ugu dhiibi karo waa bari waxa ay tahay waa meel oo gol ah oo ay maaragtay shabaabka aad ay ugu dhuntaan hay-adda nabad sugidda ayaa waxaa hadda hortaalla 2 arrin oo muhiim u ah kalsoonida lagu qabi karo iyo badqabka saraakiishooda ee mustaqbalka arrinta kalsoonida oo ah in tuhunka ah inay hay-addu ikraam xirtay ama ay dishay inay caddeeyaan xogtooda ku aadan in al-shabaab ay u gacan gashay isla markaana ay hooyadeed ehelkeeda iyo bulshada kaleba ku qanciyaan xogaha ay hayaan iyo tan labaad oo ah inay soo helaan dadkii ogaa iyo kuwii fududeeyay in ikraam ay u gacan gasho al-shabaab iyo inay qaadaan tallaabooyin mustaqbalka ah oo ilaalinaya waayo aragooda sirdoonka iyo shaqaalaha kaleba dhageystayaal